iyadoo muddo kooban ay ka hadhan tahay maalmaha Ciidul Fitriga waxa dadweynaha reer Booramo diyaar garoobayaan sida ay dharka ciida u iibsan lahaayeen taasoo xilliyada habeenkii uu ka saxmad badan yahay xilliyada maalintii inkastoo uu jiro xanuunka safmarkay COVID-19 ayaa haba yaraatay dadweynaha aanay ka muuqan feejignaan dheeriya si xanuunka looga hortago marka laga reebo dad fara ku tiris oo aad ku arkayso iyagoo xidhan face mask afka iyo gloveska gacmaha balse waxa jirta oo xusid mudan inaanu haba yaraatay jirin wax kala fogaansho ah dadkuna ay wali sidoodii caadiga u dhaqmayaan taasina ay horseed u noqon karto faafidda xanuunka coronavirus maadaama ay wasaaradda caafimaadku sheegtay tirada dadka fayraskaasi qaba ay soo kordhayaan iyadoo ay wax macluumaad dheeriya ka bixin dadkaasi in la karantiiray in kale arintaasina ay khatarteeda leedahay